wixii Somaliland dhinaceeda laga wadayo anigu aan dhexlaasaan lahaa Soomaalida oo dhan waxay isku raacsan tahay Somaliland la burburiyo dee waxaad moodaa tii laftarkeedii baa Puntland ku bilaabantay oo la lahaa awdal hal xoreeyay iyadoo raggii awdal dhooban yihiin oo sidoodii u joogaan oo iyagu xukumaan oo horta waa sheeko waaliye wey weliba nin dhulbahantaa inuu kelmaddaa yidhaahdo dhulbahantuu waxay in badan lahaayeen ilaan haddii alla ka dhigayo nin odayo wax badan og baan ahay oo oday Soomaaliya xoogaal waa siyaasadda Soomaalida iyo taariikhdaba oge wax badan bay lahaayeen nimankaa ma jirteen waanu xoreyn waayeen waa noo dagaalami waayeen waa haddii alla ka dhigayo noo ciidmi waayeen markii keliya u hiiliseen dee horta hiilkiinni wuxuu dhalay arrinkan uu dhalay marka dhinaca laga fiiriyo hadda uu ka hadlayo ninka la yidhaahdo timcadde laakiin xaqiiqda kale iyaduna meesha taallaa waxa weeye dhulkan la leeyahay horta maamul baa laga samaynaya oo sool iyo sanaag baa la yidhaahdaa waa xaggee maalin walba halkan aanu iska dhegaysanaayo dee annagu had iyo jeer aarkayga waxaanu ku jaangoynaa Somaliland iyo dawladnimo iyo afkaan qabyaaladda iyo halkan reerkaygu degan yahay iyo dhaankayaga bari mari jiray iyo arrimaha iyagu noocaas hadana maaha laakiin meesha la leeyahay hadda waxaa laga samaynayaa maamul goboleed waa sool waa tuma sool gobolka sool la yidhaahdo wax magaalaa ama city ama xataa town u qalma laba magaalaa ku yaal waa Laascaanood iyo Caynaba wey waxa soo raaca waa magaalooyin ama tuulooyin yaryar oo qabaayilku samaysteen oo haddii alla ka dhigayo dhaqanka Soomaalida ninku geedka uu shaaxa ku hoos kariyo ayuu haddii alla ka dhigayo intuu magaciisa u bixiyay yidhahdaa tuuli heblaay wax noocaasa baa uu heliyey laakiin marka dhinaca Soomaaliyaba laga soo fiiriyey iyo xilligii kacaankii uu meesha joogay carrada Soomaaliya xukumayay degmooyinkii uu sameeyay inkastoo anigu aanan shakhsiyan aqoonsanayn waayo dee dawlad rasmiga kacaanku ma ahayn oo wuxuu ahaa nidaam afgembi dalka ku qabsaday laakiin haddana degmooyinkaas oo Xudun iyo Taleex iyo Buuhoodle iyo haddii arrimaha Taleex Xudun Laascaanood iyo Caynaba nimankaa dhulbahante waxay gaar u leeyihiin ciddii kale Soomaali kale ku wehelisaba saab aanu ku wehelin waa Taleex Laascaanood waa labadaa degmo kaliya wey halka haddii alla ka dhigayo meesha la yidhaahdo Xudun meelaan waxba u jirin suldaankan idinla hadlaya geeli sidaaqaya oo bohol oo magaalada la yidhaahdo Xudun aan waxba u jirin dee beesha iyadu degan tahay oo haddii alla ka dhigay deegaan oo magaalooyin waaweyn oo xaqiran oo bohoshaas ka mid tahay degmada Xudun dhulka ku deganna Caynabana dee hadalkeedaba daa waa ogtiin haddii alla ka dhigayo xildhibaanada ugu badan ee gobolka Sool dhulbahanta oo dhan oo isdiiwaan geliyey aqlabiyadiisa doorashadii 22kii ka dhacday Somaliland waxa kaga xildhibaana batay degmada Caynaba markii lagu tartamay xaqiiqduna waxa weeye haddii alla ka dhigayo dee waa sida loogu dhaqan yahay meesha ayaa haddii alla ka dhigayo lagu kala kuraas badanayo Buuhoodle ayaa had iyo jeeraale dadka Soomaalidu ay iyada laftarkeeda arrinteeda khalad fahmay Buuhoodle waa degmo saaran xuduudda Somaliland iyo Ethiopia Soomaaliya iyo Ethiopia degmada Buuhoodle 1960kii markii 9kii sannadood ee militariga ku horreeyay xildhibaanada laga soo doortay oo ka soo baxay xildhibaan dhulcun oo haddii alla ka dhigayo ayaa ka mid ahaa xildhibaanada ka soo baxay oo Salabaan Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida ee Somaliland ay ilmaadeer yihiin oo mas'uulnimada habarta calaala ka mid ah deegaanada ay magaaladaasi xukunto ama degmadaasi xukunto beeshaan la yiraahdo habartico dhul badan bay degan yihiin waana kuwa haddaba isku hor fadhiya ee haddii alla ka dhigayo agaga taqaana dagaalada ugu baahan dhaceen tawaagi hore 2011 sanaagna hadalkeeda badaa sanaag afar beelood baa dadku degan bay yiraahdaan marka qabaylada yaryar ee meesha wax ka degan laga soo tago laakiin xaqiiqada marka laga hadlayo saddex reer u baa degan oo haddii alla ka dhigayo dee waxa weeye aqlabiyadda ummadda meesha ku dhaqana laba beelood waa habar jecel iyo habar yoonis ninka labaad oo dhulka aadka ugu weyn lehna waa ninkaas safiir la yiraahdo wasangeliya meesha fadhiya marka xaqiiqadu waxa weeye meeshaan waa la islu goynaya lugooyaduna ma wanaagsana
in ummadda la islu gooyo hadda imika waxay ahayd halka timacad mar haddii dee uu garwaqsaday halkaasaan dhigayaa inaanay meeshani maamul noqonayn oo dhulbahantay haddii alla ka dhigaya maamul gaarahoo uu leeyahay aanay u suurtogelayn colaadan iyo afxumadan ilaa garaadadii ay ku hadlayaan inay wax ka beddelaan bay ahayd iskala wax u dhigaano siyaasadda wax ku raadiyaan oo dadka meesha deggan ee gobonnimo la yimaadaan iyo sida ay waxooda yeelan kari lahaayeen laakiin imika arrinkan ay meesha wada dee waa beel waa gobolkaa mudug oo leelkasta yidhaahda annagaa leh gobolkaa mudug ee boqolka qabiil degan yahay oo jufo ka mida jufooyinkaa degan ay yidhahdaan annagaa laho maamul baan ka samaysanayna marka runtii xaqiiqda asaa taalla meesha ninka la yidhahda jabiilow dee warka timacadee haddii alla ka dhigayo dhinacana puntland aynu kaga jirno dhinacana aynu ka duminna kolley idinkaan idiin daynayaa anigu aad baan la yaabay waan ka baxay